بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هدي إلهي سبحانه وتعالى إنو قدره وحان ربنا ما دام بشي شعبان أين كجرنه بشي خير كلهيد رمضان أو نقصه فولي هاي يعني وحان ربا هدي إلهي سبحانه وتعالى ونوسخره إنان كهدلو بل بشان شعبان ولغو جيرو إيا أيامها إيا أوقات إيا زبنك إلهي سبحانه وتعالى ونو يلي إنان وحكشيغ سيدو إلهي سبحانه وتعالى قيب كميده أو أفضلي وقارك الأوغا فضلي سيدو إلهي سبحانه وتعالى أوغو قوني يلي قاركود الرمى قونية وأنا أوقاتك على قاركيد أنا لو قوني يلين أوقات داس أزمان تزبن ذا وقتيا داس أن ربينا كهد له وحكمي ده والله أوفضلي ليرات كانوا أوكسي بلاها كلا وحكمي ده بشان هدا إنو كجرنو أو شعبانها وحيالها لو قوني يلي وحكمي ده بش رمضان كه هدي الله نجارسيه سبحانه وتعالى إيانا وحكمي ذا إسلا رمضان كدحديسة طبعا كوجودن بي إلهي وحوكو خصيصي وحكمي ذا طبعا كهدن بلفتي ذا وهبين ذا هبين كميده وليلة القدر اللي يراهدو وحقو ربك خصيصي حيالا الله فضلي كميتاي وحكمي ذا العشر من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة بش ذي الحجة اللي يراهدو سوماليدنا عرفضا أي دهان طبعا كيدو هوري وحيالها إلهي أو فضلي به كميتاي وحكمي ذا أوقات إلهي أو فضلي الثلث الأخير من الليل هبينك استكلجي markii saddex meelood loo qaybiyo qaybta ugu dambayso fadliga goonida ah oo ay leedahay waxa kamid ah awqaad ilaahay oo fadilay oo dheeraadka uu siiyay waxyaalo badan oo ku khasisay maalinka jumcaha ah saacadaheeda saacad kamid ah ilaahay oo fadilay subhanahu wa ta'ala arrimahaas baan rabnaa hadii ilaahay noo qadaro subhanahu wa ta'ala inaan wax ka sheegno وحي ربي سبحانه وتعالى ونوغا قدره وحن أقنها بشهر رمضان الله سبحانه وتعالى وبال أو خير فربضان لحظي ذي لي وقفك إلهي سبحانه وتعالى بشاس ووافجيه خير فربضان إلهي سبحانه وتعالى حقي سأوكيه ليه محايا لإلهي قرآنك وحكوليه سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر حقيبه كجرا بشهر رمضان كجرا بشهر رمضان مركا هبين كاس عبادة ذي وقفك إلهي وافجيه كم بلود عبادة أو سميستي أو كاله أي ماركتي كخير بدنتو كان وناك بدنتاي برك شهر رمضان وحويه وفضل وين أي بشا سلاد هاي صوم كذا الله صومه قفكو إلهي وافجيه سبحانه وتعالى وحو رسول كليه عليه الصلاة والسلام حديث إمام البخاري في صحيح كسوغن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قفك بشا صومه رمضان كأه إساقا أو رمين أو رب الرميسيه أصومه إساقا أو احتسابي أجر إلهي ويديسان أيوه ذنوبتيسا وحيه الرئي والله دافابه ربي ليه نبينا ليه عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه ذنبي سي صونكا كهر الرئي ربي وأضافه سبحانه وتعالى وياه كامرك
bisha ramadaan fadliga ay leedahay lama soo koobi karo maxaa yeelay habeen walba kulligeed oo ramadaanka ka mid ihi allah intaas cadad aad u tiro badan ayuu naarta ka xureeyaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha nugu daree marka taas waxa weeye waa meeshii ramadaanka leylatulqadriga oo ramadaanka ku jirana alcashru alawaakhir min ramadaanna faa'iido badan bay leedahay faa'iido aad u tiro badan iyo ajri badan ayay leedahay maxaa yeelay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam tobanka dambe markii la gaaro sida xadiidka caaisha radiallahu canhaa ay maaragtay nabigeenna nooga warisay waxay leedahay axyaa leylahu shadda mi'zarahu wa ayqada ahlahu wa axyaa leylahu yacni xadiidkaas caaisha radiallahu canhaa waxay leedahay tobanka dambe markii la gaaro nebiga dadkiisuu hurdada ka kicin jiray habeenkeeduu noolayn jiray marada ayuu dhexda ku xidhan jiray culammada waxay ku sheegeen kaana yactasilu can nisaa'ihi haweenkiisa ayuu ka fogaan jiray waa kinaaya can ictizaali nisaa ayay culammadu ku sheegaan weeyaan fadligaas waa yacni waxyaalaha ay leedahay maaragtay cashru alawaakhir min ramadaan bay ka mid tahay wakadalika leylatulqadriga iyadana nabigeenna wuu noo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xadiid imaamu albukhaari iyo keyrkiiba ay wariyeen xadiid abi hurayra wuxuu leeyahay man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaba gufira lahu maa taqadama min denbi qofka habeenkaas leylatulqadriga istaago oo cibaadaysto rabbi oo waafajiyo waxaa loo dhaafaa dunuubtiisii hore gufira lahu maa taqadama min denbi awqaaddaas waxyaalo badanoo ilaahay ku khasisay waad u jeedaan ramadaanka waa la khasisay qofka soomaahi in dunuubtiisa loo dhaafayo waxaa la khasisay cashru alawaakhir min ramadaan tobankaa dambe fawaa'idda ay leedahay iyo soo nebiga u noolayn jiray tobankaa dambe oo leylatulqadriga ay ku jirto fadliga iyo wanaagga ay leedahay waxaan sheegnay waxaa ka mid ah yacni alcashru alawal min dilxija bisha dilxija la yidhaahdo tobanka ugu horreeyo tobanka habeen ama tobanka maalmood ugu horreeyo waa taa weeyaan waana miduu ilaahay ku dhaartay subxaanahu wa tacaala oo qur'aanka rabbi noogu sheegay walfajri wa layaalin cashrin fajarkaan ku dhaaranayaa waxaan ku dhaaranayaa habeenno toban ah tobanka habeen waxay culammadu ku fasiraan alcashru alawal min dilxija bishaa dilxija la yidhaahdo sidaa darteed shareecadu waxay ku boorrisay bal nebigeenna uu ku boorriyey salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dadka in tobankaas cibaado dheeriya dadku ay la yimaadaan cibaado aad u tiro badan oo dheeriya oo inay dadku la yimaadaan si ajri fara badan ay ilaahay agtiisa uga helaan ajriga ay leeyihiinna qofka ilaahay u waafajiyo tobankaa habeen khayr iyo cibaado samaynteed hadday sadaqad tahay hadday qiraa'atulqur'aan tahay hadday tahay khayroo idil yacni maaragtay ducadii iyo kulli wax walba wanaaga uu qofku sameeyo xadiid imaamu albukhaari uu warinayo ayuu rasuulku wuxuu noogu sheegay kadalika abu daawuudna uu warinayo xadiid ibnu cabbaas wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam maa min ayaamin alcamalu alsaalixu fiiha axabu ila allahi min haadihi alayaam maalmo ma jiraan camalka wanaagsani allaah looga jacayl badan yahay maalmahaas tobanka ahi maalmaha tobanka ah camal looga jacayl badan yahay alla xaggii maba jira maalmahaas yacni ayaam alcashri waxaa loo jeedaa maalmaha tobanka oo dilxija ah weeyaan markaasay saxaabadii nebiga weydiiyeen fa qaaluu yaa rasuula allah wala aljihaadu fii sabiili illah maalmahaas xataa aljihaadu fii sabiili illaahi xataa uma dhigma miya oo lamid ma aha miya camal la mida ma jira baa tiri maalmahaas ilene camal saalix oo la sameeyo alla ka jacayl badan yahay maalmahaas wixii ka soo haray ma jiraa tiri bal xataa jihaadka ma ka khayr badan yahay qaala wala aljihaadu fii sabiili illah xataa jihaadka oo alla jidkiisa lagu dagaalamo litakuuna kalimatullaahi alculyaa alla kelimadiisa uun inay kor noqoto keliya loo dagaalamo o aanan qarad kale iyo dan kale
aan loo dagaalamaynin qowmiyad iyo maaragtay wax la yiraahdo aan loo dagaalamaynin qabyaalad aan loo dagaalamaynin xooladoon aan loo dagaalamaynin yani wax la yiraahdo shajaaco iyo geesinimo aan loo dagaalamaynin waxaasoo idil markii laga saaro kelimada alla keliya kor noqoto qofka u dagaalamaya xataa maalmahaas camalka la sameeyay baa ka khayr badan laakiin nabigu wuxuu ka soo reebay salawaatullaahi wasalaamu calayh wala aljihaadu fii sabiilillaahi buu yidhi markaasuu yidhi ilaa man kharaja ilaa rajulun kharaja binafsihi wa maali falam yarjic min dalika bishay qof mooyee nin mooyee naftiisii maalkiisiba jihaadka ilaahay litakuuna kalimatullahi alculyaa u baxay kelimadda alle inay kor noqoto oo aanan naf iyo maal midna la soo noqon meesha ku shahiiday wey kaa mooyee inta kale waxa weeye maalmahaas ayaa ka camalka la sameeyahay alla oo ugu jacayl badan yahay buu leeyahay waxaa ka mida baan sheegnay الثلث الأخير من الليل ومن كل الليل أيامها إلهي أو فضلي وحيالا مزايات خاصة لغو قونية لي وحكمي ده هبين والبا مركي هبين كسدح قيبود لو قيبيا قيب تدنبئ أيها اللي هذا أيضا إلهي وحكو خسيسة سبحانه وتعالى سيدو النبي النبي النوشيق صلوات الله وسلامه عليه حديث كاس بخاري مسلم بويورنا إن حديث أبي هريرة ورسول كلية عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير ورسول كيري ربي قالنا تبارك وتعالى وأسودقا هبين والبكل جيد سماذا أدونك أسودقا سماذا أدونك أي أسودقا وقورما لكن حين يبقى ثلث الليل الأخير مركو saddex meelood habeenkii hal qayb ay ka harto ayuu rabbi soo dagaa waa marka dadku iska hurdahayaan oo wada jiifaan oo qof walba firaashkiisa u macaan yahay wey markaasuu fa yaquulu rabbi wuxuu leeyahay allah man yastaghfirunii faaghfir lah waman yas'alunii faucطiyah waman yadcuunii faastajiiba lah falaa yazaalu kadalika xataa yatluca alfajr wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam war yaa istikfaar i weydiisto dembi dhaaf i weydiistoon u dembi dhaafa يا وحي ويديستون سيا يا إبريون أجيبا ساسو ربك هيني سبحانه وتعالى هذا الكاس كما زولي إنه نبي الله سبحانه وتعالى كما زولي الله إنه سيدا ليه إلى فجرك أو كرنش باقا أو كبري برك وقت قاسنا ووقت إن لقفا إذا يستقباهن أو قاد إن لقفا إذا يستقباهن أي كم التهيويا waxaan soo sheegnay ramadaanka ninkuu ilaahay gaarsiiyay inay faa'iido badan tahay oo ajri badan qofka uu ka helayo dunuubtiisa loogu dhaafayo inaan ka faa'iideysano ku dadaalna baa la dooni waxaan soo sheegnay isla ramadaanka dhexdiisa tobanka dambe sidoo nabigu u dadaali jiray cibaadada iyo tahajjudka iyo qiraa'atul qur'aanka iyo sadaqada iyo waxba ducada ugu dadaali jiray inaan ugu dadaalno hadii ilaahay na gaarsiiyo subhanahu wa ta'ala maxaa yeelay habeen leelatul qadri la yiraahdaa tobanka ka mid ah oo awtaarta ku jira witriga ku jiro yaan tirada isdheer ku jiro witriga tirada isdheer ayuu ku jira hadii ay tahay 22ka 23ka 25ka 27ka 29ka ayuu ku jira ayadana insha Allah ta'ala markii fursad aanu helno ayaynu ka warrami doonaa laakiin ijmaal ahaan hadda u sheegayna riwaayaadkana 27ka u badan yihiin inkastoo culimadu ay maartay axaadiista markii la isku dardaro ay tusayaan inaysan hal habeen weligeed aysan noqonaynin tantaqil ee guurguurto oo hadba habeen ay tagayso waxaanu soo sheegnay 10 min dhulhijja tobankaas hore markuu ilaahay qofka gaarsiiyo inuu qofku ka faa'iideysto ayaa la doonaya thuluth al-layl al-akhir wa kan hadda aan ka hadlayno ugu dambeeyo waan faa'iido weyn qof walbaba inuu waqtigaas aan isku dayno inaanu soo kacno cibaadaysano ilaahay barino rukuucaad u tukanno yaani si aan uga qayb galno nafaxaadka iyo khayrkaas Allah adoomadiisa uu siinayo aynu uga qayb galno waxa kamida oo qaada sidan horeba u soo sheegay waxyaalaha goonida lagu khasisay saacad kamid ah maalinta jumcaha ah saacad kamida
saacadaas waa la qariyey lama yaqaan miday tahay ma garanayno lama yaqaano xadiidkaasna imaam axmed ayaa fi musnadihi ku warinayo xadiidkaas xaafid alciraaqi raximahullah wuu tasxiixinaya waxaana warinayo oo ka warinayaa abu saciid alkhudri iyo abu hurayra labadaba nabigay ka warinayaan culammadana ay ka soo saareen weeyaan wuxuu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ina fi ljumucati saacatan laa yuwaafiquha cabdun muslim yas'alu allaha caza wajalla fiiha khayra ilaa acطaaha iyaah wuxuu leeyahay rasuulku maalinta jumcadaa saacad baa ku jirto saacad waqti baa ku jiro waqtigaasoo qof muslima oo waafaqaahi uusan jirin oo markaas markuu waafaqana ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr iyo wanaag weydiisto ilaa haddii oo weydiisto allah wanaaggaa oo weydiistay buu siiyaa saacaddaasi way qarsoon tahay culammada qolo waxbay ku sheegaan riwaayaadka qaar waxay leeyihiin bacda salaat alcasri ayaa lagu sheegaa qaar hayra daalika la yidhaahdaa ilaahay baa garanayo marka qofkaas inuu maalinkaa jumcada ah ducadana badiyo ilaahayna khayr weydiisto ayaa la rabaa saacad kastaba si uu u waafaqo saacaddaa oo saacatulijaaba la yidhaahdo oo u waafaqo allahna subxaanahu wa tacaala ou yacni khayrkaas oo weydiisto ou siiyo waxaa asmaanta ka mid ah sidaan horayba u soo tilmaamnay bishaan shacbaanka la yidhaha waxyaala lagu gooni yeelay waxyaalo badan ayaa lagu gooni yeelay bisha shacbaan waxaa ka mid ah bisha sanadkoo idil markii la isku daro 12 bilood ramadaan markii laga reebo bisha uu nebigu ugu soonka badnaa waa bisha shacbaan wey waxay tusaysaa masiya khaasa inay leedahay 12 bilood ramadaan markii laga reebo bisha soonka laga reebaahay bisha ugu soonka badnaa oo maalmo badan uu ka soomi jiray waa bishan shacbaan wey hadda aynu ku jirno marka qofka inuu ka faa'iidaysto ayaa maaragtay la doonayaa weeyaan waxa arrintaas tusaya xadiidka imaamu albukhaari imaamu muslim ay warinayaan can ummi almu'miniina caaisha radia allahu canha caaisha oo zawjadii nebiga xaaskii nebiga ahna ay ka warinayaan yaa waxay leedahay maa ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam istakmala siyaama shahrin qatu ilaa ramadaan wamaa ra'aytuhu fii shahrin akthara minhu siyaaman fii shacbaan waxay tiri caaisha radia allahu canha ma aanan arag rasuulka alleh salawaatu ullahi wasalaamu calayhi oo dhammaystiro bil soonkeed weligay ma aanan arag ilaa bisha ramadaan mooye bil min awaliha ilaa aakhiriha awalkeeda ilaa dhammaadkeeda soon lagu dhammeeyo la wada soomaa ramadaan un baan ka arkay bay tiri wamaa ra'aytuhu fii shahrin akthara minhu siyaaman fii shacbaan sidoo kale ma aanan arag bil uu kaga soon badnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam xagga soonka uu kaga badnaa bisha shacbaan ma aanan arag buu yidhi ma aan arag bay tiri caaisha radia allahu canha bishaas shacbaan nebigeenna aad buu u soomi jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiid kaloo imaam axmed oo warinayo kadaalika nasaa'ina oo warinayo ibnu xibbaanna oo ibnu khusaymana oo tasxiixinayo xadiidkana uu nebiga ka warinayo usaamata bnu zayd radia allahu canhumaa isagii aabbihii usaamata bnu zayd radia allahu canhumaa uu ka warinayo qaala wuxuu yidhi qultu yaa rasuula allah nebigaan weydiiyey buu yidhi rasuulka allow lam araka tasuumu shahran min ashuhuuri maa tasuumu min shacbaan kuma aan arko inaad bilaha bil ka mida aad soomayso sida aad bisha shacbaanka u soontee iiga warran buu yidhi bisha shacbaan baad aad u soontaa bilaha kale saa uma soontide waa sidee rasuulka allow markaasuu qaala rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam daalika shahrun yakfulu annaasu canhu bayna rajabin wa ramadaan wa huwa shahrun turfacu fiihi alacmaalu ilaa rabbi alcaalamiin fa uxibu an yurfaca camalii wa ana saa'imun wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam bishaas shacbaan la yidhaahdaa waa bil ay dadka ilowsan yihiin halmaamsan yihiin waa bil bishaas yacni dadku ay mashquul yihiin ay ilowsan yihiin
وحين أود حيسا بش الرجب إيه رمضان أي أود حيسا وشعبان وي وبالبو الرسولك عليه الصلاة والسلام شعبانك أعماش دتك أي سميان ربي الله كريالو بش عملك قفك وناق أو سميه الله الله كريالو سيدا درتيد وحان جعله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم عمل كيغا أنا صومن إلا كريالو أيان مارتي أن دوني يا أبوي أساسا جعله برسولك عليه الصلاة والسلام بركينا مزية خاصة لهذا بعد قرني لأن رسولك حنا وشيء إن عملك لكريالو مرك أبا صومن وما أنت نصومن عملك إن لكريالا ووح وين ويان وح آدي آدو وين وين بشا مرك شعبان كلي يرهذا بشا شعبان كلي يرهذا وحيالا بدنا دحدي ذا الأحكام بدن أي دحدي ذا مركي نص كدن بلقارو شان يطبنك مركي لا ضافو إلى دماتك إن لا صوماهي حكم كيدو وامحي حكم كيدو وامحي وحويه مربى هدي شان يطبنك لا ضافو شعبان وإنا نلسومين محايلي حديث إمام أحمد وورنا ابن حبان وتصحيحنا حديث أبي هريرة أي الرسول عليه الصلاة والسلام وحوليه إذا كان النصف من شعبان هدي أو يهي بش شعبان نص كذا مركي لقارو فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان صونك اسكداي كجوك سدا كاف هيستا إلى لقارو بش رمضان لقارو علماء مركو حيليهين وحلوغا جوجيه وامحي وحلوغا جوجيه إن أو رمضان كما دام أسود وياهي شان يطبن كاس إنه اسكسي دياريو أو حوغا أو حوغيستو سبيل دنبال سومياي بشاس أو أسوغو نشاد له مارت راشين عنايو جركيسو في عنيها إنه صونكي صدا كوغالو أيا لدونيا قار علماء كميدا وحي رهدان سدا دوكتهين وحي رهدان قفك لليه هلقا جوك سدو وقفكي أنا صون جوكتا أهوس يعني أو كعادية شيء أنا أيسن جرين وي أيسن جرين أو سن قف عادة ولهان جري صون أو سن لهين لكن قفكي سومي جري أو مثلا سنينتي خميستو سومي جري كاسو كلا صون كيسو وذن كرا إلا يو سومي يوم الشكي نو إيمان دون أنك هاد لدونا موي وحوية وسومي كرابي ليهين دب مالها ولقصو استثنوذا ولقصو الريبا sidaasoo kale bay leeyihiin waxaa jira marka bishaan shacbaan waxyaalo badan oo dhexdeeda ay dadku sameeyaan waxaa ka mid ah habeenka 15 ay shacbaan tahay maalinkeeda in la soomo habeenkeedanu la istaago oo qiyaam lagu khasiso laguna magacaabo leelatul xukmi lagu magacaabo ليلة الحكم يدهان أو معناه يقول لك من ليلة القدر إنه يهي أرنتها محاك جرو بشان واتان هذا كجر نوي شان يتبن كذا إن عبادة لغو خاسسو أصلا سند أما حديث مرفوعة أو الحجيسان كراهي لما أركويا مجرو لا عبادة أنا لغو خاسسين كليجد محايا لنصوص نوت المامتي ونوجد يسمهين صون هدو يهي قيام هبين كذا الاستاغيتا مالنكي ولا صومه وحكا جراهي وحكا سقناذي لما أركو مركا شيخ اللي يراهدو شارحة الترمذي الشرحو مبارك فوري كتابك تحفة الأحوذي اسكاله مركو مسألة اسكاها اللايو وحوليه لم أجد في صوم يوم ليلة النصف من شعبان حديثا مرفوعا صحيحا ما أنا نهلين ما أنا أرق يعني هبينك أي شنية طبنك بش شعبان نص أي تحي مالين تيدا الصوم كذا حديث نبي الله كريالو صحيحة ما أنا أرق بولي زيد بن أسلم وعلماء ذي السلف كأها كمذا عودي جري ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان
ولا يلتفتون إلى حديث مكحول ولا يرون لها فضلا على ما سواها وحو أورنجري ما أنا سو قارن مشايخ ذيني إيا فقهاء ذيني كما أنا سو قارن إني ملعسانيان وفيرينيان وقيمة يليان عبادة أهي هبين كان نصف من شعبان أما صون أما قيام مالك يقول الصوم هبينك يقول استاغو حديث كمكحولنا ما أين فيرين جرين هبين كاسنا فضل قونية وهبين ذا كلا وكديرياي كلا ديرياي ما أين نؤرك جرين إذن أحاديث باجرته أو فضل جيدا كهذا شو أحاديث تاسنا كل جيد لا يخلو من مقال واضطراب ووضع حديث وضع ضعيفة أما موضوعات وأنا سجنان ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه تخصيصا بقيام أو صلاة نبي قالنا كما سجنان صلوات الله وسلامه عليه صحابة ذني رضوان الله عليهم وأصحاب النبي قائه كما سجنان إن هبين كاس صلاة لغو خصيصه استاق لغو خصيصه maalinkiina soon lagu khasiso kama sugnaanin weeyaan kama sugnaanin arrintaas in la yiraahdo habeenka laylatul hukm waa caamada inta badan saas yiraahdaan oo dadka waa habeenkii qadarka la kala xukminayo sanadkaas wixii dhexdeeda dhimanayo wixii guursanayo wixii dhalanayo wixii rizq la siinayo wama ila dalika habeenka la xukumo way yiraahdaan oo habeenkii waxay ka cagsiyaanba laylatul qadrigi ay kan ka dhigan laylatul hukm ka ka dhigan waxaad arkaysiin duca la akhriyo habeenkaas oo wadaadada Soomaalidan ku arki jirnay in habeenka laylatul nisf min shacbaan duca khaasa bacda al-maghrib ka been al-ishaaءين ka la akhriyo dalaa'il al-khayraat ka kitaabka la yiraahdo ay ku qoran tahay waxaas oo dhan asal ma laha wax asal ay leedahay lama arko laylatul hukmna lama yiraahdo ليلة الحكم كوا ليلة القدر هو إلهي بقرآن كان نوغو الشيغي سبحانه وتعالى في سورة الدخان مركو ربي كوا الرميو وحوليها إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين ليلة النصف من شعبان معها وليلة القدر أو رمضان عشر الأواخر كجر توي حي القرآن كوحان سود الجنيب ويرى الله إنا أنزلناه في ليلة مباركة هبين لبركيي وخير كيسو فربذيهي أيان سود الجني إنا كنا منذرين مركان سود الجني إننا وان دات كان أدقين القرآن كأدقين فيها هبين كاس وحاكسو دحديسة هبين كدحديسة با يفرق كل أمر حكيم أمر كستو حكمة وصاحب أما محكمة الله سوقو هبين كاس أيال القدرة أو لكلا سارة أو الحكومة ويا أمر من عندنا إنا كنا مرسلين علماء وحيكون فسران ليلة القدر إنه يهي ليلة الحكم كإنه ليلة القدر يهي فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا وهبينك رمضانك أو 10 الأواخر كجر ليلة القدر اللي يراه ذويا معها ليلة النصف من شعبان معها ليلة النصف من شعبان لو مجيدو إن ليلة النصف من شعبان لقوا فسرنا وخطأ وقف سيدة ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره أو كسوغيه وكذلك أي ماذا مارت مفسرين تأكسوغيه الإمام ابن القيم رحمه الله مركو أرنتان كهد ليه ليلة ذان وحولية وهذه هي ليلة القدر قطعا هبين كان إلهي قرآنك أكوش هيك وليلة القدر حيا القرآنك قرمة لسودجية رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بإله إليه في سورة البقرة وهبينك قرآنك لسودجية شهر رمضان ليلة القدر كان شهر رمضان وكجرا مش رمضان وكجرا مركب وحوليه هي يعني waxaa tusinaya ibn qayyim inay tahay laylatul qadriga oo ramadaan ku jirtaahi in ay tahay wuxuu leeyahay liqawlihi ta'ala inna anzalnahu fi laylatil qadri quraanki baa leeyahay laylatul qadri baa soo dejinayba markaas yiri waman za'ama annaha laylatul nisf min sha'ban faqad ghalid qofka sheega inay tahay laylatul nisf min sha'ban ba laylatul hukm ki laylatul qadr ki loo jeedaa
qofkaas uu khaldamay buu yiri lidaalika waxaad arkaysaa dad badan way isweydiinayaan waxaa la iskugu tuurtuuraa maaragtay maseejiyada la iskugu diraa leylata nisfi min shacbaan inay tan tahay habeenka leylatul xukumka waad arkaysaa dadka maaragtay way sameeyaan arrimahaasoo kale asaas ma laha leylata nisfi min shacbaan yacni wax masiyo khaasa ay leedahay lagu gooni yeelay ma jira weeyaan yaa bilaabay goormaasa la bilaabay in leylata nisfi min shacbaan leylatul xukum laga dhigo waxaa bilaabay nin la yidhahda ibna abi xamraa ibna abilxamraa nin la yidhaahda ayaa bilaabay wuxuuna bilaabay sanadkii hijrada nebiga ay ahayd 448 sano markii ay hijrada nebiga ahayd ayuu bilaabay wadaadkaas wuxuuna ka bilaabay masjid al-aqsa salaad la yidhahda salaat al-alfi buu bilaabay يعني نكاس أول من ابتدعها أهاويا ليلة النصف من شعبان إلا استاغو وصلاة الألفية صلاة الألفية اللي يرى هذا اللي تكذو أو عبادة اللي خصيصو يعني القرن الخامس الهجري قرني شنات أو هجرة النبي يعني مركي اللي جوجو شم بقول أو وحير لمن قرن قاس اللي جرا أفر بقولي أفرتني سديت ما سهلنا نكاس بالله بيويا ولذلك ابن القيم رحمه الله وحوليه هي وهذه الصلاة وضعت في الإسلام بعد 400 ونشأت وحولية ونشأت في بيت المقدس فوضع لها عدة أحاديث وحولية هاي صلاة داسي وحوية ووح إسلام كاللغسو كرديي أول الدجيي أفر بقوله سنة كدب يعني أفر بقوله سنة كدب أيالا بلابي ونشأت في بيت المقدس إنك بلابتي مركاسة أحاديث تربضا لو دجيي وموضوعات يعني مارتي سداسو أورنا يا وين مركا أي مدن سداسي يقدي جيرين هبين كاس إنو سنبي يقولون وحبا مزايا خاصة سينين مزايا خاصة ييلين قوني عبادة لو قوني يلا أوسن سمينين أي نوع عديين أي مداسي وين حكم إذا أبو شامة شيخاس oo maartay yaani aad uga hadlo bidacda iyo wax la midka ah umada dacwada diinta lagu soo kordhiyay umada uu kashfiyay wax badan kutub badan leh wuxuu leeyahay walil awaami fiha iftitarun azim dadka caamadana habeenka leelada nismi shacbaan fitna badan ay qaba ku fitnoobeen buu leeyahay wazayyana lahum ash-shaytaanu ja'alaha min asl sha'air al-islam soo wad hadalkiisa ku soo khatimaya leeyahay wazayyana lahum ash-shaytaan شيطان بقى قرحي هبين كاس عبادة وقدقي الرسول كان وقمدقين صحابة اللي قمسوا قورين تابعين اللي قم قورين سلفوا هذه الأمة اللي قمسوا النقلين مركاسو شيطان كي جعلها من أصل شعائر المسلمين وقدقي شعائر تدتك مسلمين إليه عبادات كودي ميت كميدة أي شيطان وقدقي بوليه مركا هبين كاس ليلة الحكم لما يراهدو وحان ليه ولا ليال ليلة الحكم وليلة القدر aan meesha uu nusuusta ay dhigtay aanu dhigno aan ka deyno waxyaalaha bidacda ah oo dadka muhdathaat al-umuur ah gadaal laga bilaabay yaanan ka diin dhiganin ummadan yaanan diin uga dhigin weeyaan maxaa markana la ka rabaa bishaan oo kale markii la gaaro waxaana la ka rabaa shacbaanka qofkii deyn lagu leeyahay soon lagu leeyahay qadaa lagu leeyahay inuu dib u dhigaahi ilaa ramadaanka kale uu soo galo wax banaan ma aha waxaa la rabaa marka ramadaanka intuusan soo gelin bishaan inaad wax alla wixii qada lagugu lahaa inaad iska bixiso qadada inaad iska bixiso yacni hadduusan cudurdaar jirin wey haddii cudur sharciya jiro hadda qofkaas waaba cudur sharci buu leeyahay laakiin qofka aan cudur sharciya lahayn oo cudurdaar aan lahayn awoodi karo inuu soomo bishaas inuu qadahaas lagu lahaa soonkii hore ka tagay intuusan kan kala soo gelin inuu qadayo baa laga rabaa weeyaan waxaana tusinayo xadiidka imaamu muslim fi saxiixi uu ku wariyay xadiidu caaisha radiyallahu canha waxay tiri caaisha imaam muslim baa fi saxiixi ku soo saarayo waxay tiri caaisha kaana yakuunu calaya siyaamu min ramadaan dushayda waxaa ahaa soon ayaa ahaan jiray bay tiri oo laygu lahaa qadaa فما أستطيع أن أقضيه
inaan qadeeyana ma awoodi karin ilaa fi shacbaan bisha shacbaan un baan qadeyn jiray sababta ay uga tagto waa maxay wadaalika limakaani rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam nabiga booska ii joogo maxaa yeelay rasuulka xaaskiisii ahayd waqti kasta u baahan kara rasuulka xaaskiisa inuu la kulmo marka ilaalin aan nabigeena ilaalinayo daraadeed baanan dib ugu dhigi jiray baanan qadeyn jiray ilaa shacbaanka shacbaana nabiga soonka aad u badin jiray waad ogtihiin maalmihii ka tegey laanna haweenka waad ogtihiin yacni ma aragtay bil walbaba waxaa dhici karto waxaa la yidhaahdo caadada shahriga inay ku dhacdo caadadii ay ku dhacdaa dhici karto muddo uu hayo 5 bari 6 bari 7 bari markaasoo kale ay qadayso qofka inuu safraa dhici karto oo safar maaragtay u bannaan yahay cudurdaar sharci oo ku afuro markaasoo kale hadduu qadayn waaye sanadka intiisa kale waa inuu bisha shacbaan iska gudaa baa la rabaa weeyaan waxaa kaloo nala ka rabaa marka taa waxaan uga baxaynaa soonka inaan dib loo dhigin ciddii qada lagu lahaa inay iska bixiso xataa way soomi kartaa xadiidkii nahyiga ahaa ma soo gelayo oo 15 wixii ka dambeeyo fa amsiku can isawmi xataa yakuuna ramadaan ayaga waa laga saaraa maxaa yeelay hadday 15 hore kuu soo roobi weydo 15 kale qadaa lagugu leeyahay soon waad gudan kartaa weeyaan waxa weeye marka waxa ugu dambeeyo oon ku soo khatimayna kelimadayda waxa weeyaan bishaan shacbaan markii la joogo waxyaalaha la iska reeba waxaa ka mid ah sawmu yawm shaki maantoo kale oo bisha ugu dambayso shacbaan berri ma ramadaan baa mise ma aha shaki ou jiro sawmu yawm shaki baa la yidhaahdaa lagu shakisan yahay maalintaas in la soomo ma aha sawmu yawm shakiga waa maalinka uu ramadaan dhammaanayo berri inay soon tahay in kalena aan la ogayn markaasoo kale yawm shakiga ilaa bishii la arko lama soomo markii la arko meel kastaba ha laga arkee waa inaad maaragtay hadwaad soomi muslimiinta يعني اختلاف المطالع باب كاسي كهدلان حديث كاسنا وحاتسينيو أصحاب السنن أيا ورينيو حديث صلة بن زفر وحولي عمار بن ياسر أيا لجوغي مارين يوم الشك أي تهي مركاسا وحالو كيني نيف أريول هلب كيبا لو كين عمار داد مركا لفديي أيا كفوغادو ديدي إني عنادي وحكا عنان إني وحكا عنان أيا ديدين عمار مركاسو وحو عنادي بوعنا عمار وصحابي وي مركو عنو يري من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قفك ما أنت صومه نبي الله محمد بو خلافي صلوات الله وسلامه عليه مركو حال الربا بشان إن الأحكام تيدي سيديتها إنه مارت كود ذالنه قفل بو إلهي إنه كجارسية بشهر رمضان بري إلهي ويديسو سيد السلف كان ويديسن جيرين إلا اللهم بلغنا رمضان إله رمضان نجارسي إن لي هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.